gabadhaydi masaakiinta gabadhayda masaakiinta ka hadal gabadhayda anaka dadana dhalay waxay xiran karnaa dadka haysta gabadhayda haysto inay noolaadaan ay rabaan. A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Anigoo ah Qaali Maxamuud Guhaad waxaa maanta i keenay oon shirkan jaraa'id u qabtay dhibaato i haysato dawladdu waxba ka qaban la'dahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay waxba ka qaban la'yihiin oo culumadii hadashay oo salaadiintii hadashay oo waxgaradkii beelaha hawiye hadlay oo islaamka ilaahay hadlay oo qof kasta oo qayaar uu ka hadlay oo waxba laga qaban waay waa dhibaato inteeda la eg waa wax lala yaabo waa waxaan adduunyada ka dhicin waa wax ummadda Soomaaliyeed aan hore uga dhicin dib weyn aan haysto gabadhaydii bisha lixaad la qaaday ilaa hadda 2 bilood waay shalay ugu ekeed labadeedii bilood wax ka hadlaaya iyo wax ka midna ma jirto qofka dambi waa galaa wax wuu haleeyaa maxkamada la geeyaa waa waarna loo jaraa sidan ay wax u dhaceena la yiraahdo laakiin waa kuwa afduumnaana gabar yariis ah waxay halaysa maxay tahay maxay halayn kartaa gabadha yarta madaxweyne ilaa ra'iisul wasaare ilaa gudoomiye baarlamaan ilaa iyo ku-xigeenkiisa ilaa iyo kii amniga ilaa iyo maxaan ku dhahayay laamaha amniga wax kasta ilaa waa laga aamusay qof kasta hadlay dibka jiro waxaan u arkaa Hormuud waa hay'ad waa shirkad dhan oo isgaarsiinta Soomaaliya ah waxay noo diiday inay nasiiso lambarkii u dambeeyo gabadha wacay waa dhibaato waxaan meeshaas uga jeedaa power abuse na haysto oo waxba laga qabaneyn niman madaxa wadankii joogo ra'iisul wasaare 4.5 waay wadanka waxa lagu maamulo gabadha kursiga fuulo ayay ku matalaa waxba nooma qaban lambaradooda helay asaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadoodaba waxay ii qabteen ma jirto lambaradoodii way iga qaban waayeen masajiyaan u qoray codadaan u duubay kama soo jawaabin indhaha may la yihiin way maqlayaan dhibaatada taagan indhaha malo dhagaha malo ma waalno ma jirino sariir ma saarno way maamulanayaan way socdaan maxay ugu dan la yihiin oo saan u galayaan waa ku ceeb labadoodaba madaxweynaha xilkiisu waa soo dhamaaday haddana xil uu rabaa seel ku dooranaa seel lagu doortaa dhibaatada jirto cunugta yartoo 23 jir oo maanta magaalada uu joogo ka talinayo ku afduuban intay taala adduunyada meelay taalo malaha nimanka nabad sugid oo gabadhayda oo afduuban tahay waxa ka qabto gabadha qabiilooyin ay ka dhalatay gabadha waa 10 tolle gabadha waxay ka dhalatay gobolka Hiiraan waxay ka dhalatay Galmudug waxay ka dhalatay Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir waxay ka dhalatay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ee qabiilooyinkeeda joogan intaas waa la hadlay waa la xishoonay waxa la lahay madaxweynaha ka hadli doono ra'iisul wasaaraha ka hadli doono maxaan ku dhahay waxba laga gaaraya waan dacwoonay meel kastaan tagnay waxaan tagnay nabad sugid waxaan tagnay booliis waxaan tagnay maxkamad sare meel walbaan tagnay waxba uu ka qabanaya madaxweynaha wandhay kama hadlan dhibaatada jirto kama hadlin gabadhaydii wadnaha ay cadaaday beerka ay bisil hooyaan ahay ani waa laygu fiirsaday wax layga qabanayo ma jirto marka hadda sheekada waxa waaye waxa fikirtiin fala waaye wadankii doorasho u socdaa wallahi oo billahi oo tallaahi inaana doorasho la aadaynin waa la isku dhamaana madaxweyne dadka hay isku dhamayn waa imaqlaysaa indhaha maliid ka hadal arinta ikraan ka hadal ka soo daa nimankay waa afduuban tahay xaniinyahay ku haystaan xaniinyo maahane waa kuwa la garab taagan yahay dadaan ka dhalanay dadaana dhale cunugta 10 ehelay qabtaa ciidamadan Soomaaliyeed oo gorgor iyo maxaan ku dhahayay waran iyo gamoon u bixisay waa dadkeedii 70% waa dadkeedii waa xishooneena maanta hal isdil haday tahay madaxweyne adigay ku taalaa taas gabadhaydii masaakiinta gabadhayda masaakiinta ka hadal gabadhayda anaka dadana dhalay waxay xiran karnaa dadka haysta gabadhayda haysto inay noolaadaan ay rabaan gabadhayda 2 bilood ay waa afduuban tahay xoogay ku haystaan maxay tahay daday qabaan ilmay qabaan naagay qabaan inay noolaadaan ay rabaan xilay rabaan anaga way xishooneynaa ehlaan qabnaa gabadhayda nimankaas uma afduubnaan karto gabadhayda waxay laga qabto waa arinteeda madaxweyne
madaxweyne ceebay kugu tahay maanta gabar yar oo masaakiin oo gabdhahaadoo kale inay u afduumnaato nimankan gabadhayda iga soo dhafaad yaasin intuu i wacay oon u tagay oo yiri maama 2 biri naga warsug 2 maalin ilaa hadda igu soo qaadato wuxuu ka hadlaay malaha wuxuu ka sameeyay malaha annaga markan waxaan sameeynayna annaga inoo taala dad baan qabnaa annaga doorasho la aadayna male hal is dilo idinka ilaamiseen hal is dilo waan la is dilaya ballan waa in la is dilo la is baabi'iyo hadii kale 48 saacadan soo socoto waxa laga qabtay gabadhayda la iga soo daayay nimankan hal iga soo daayo ra'iisul wasaaraha ma hadlaayo madaxweynihi madax meel ka salaaxo ka koreey ma jirto ayaga dadkii uu hogaana ra'iisul wasaare Roble anagoo kursiga nagu matala wuxuu iga qabta male ila ma soo hadlin message aan u duubay message aan u diray madaxweynaha sidoo kale adduunyada meel ay ka dhacdo malaha cunugta yarista oo intaas oo bilood hoostooda ku afduuban Soomaali inaan nahay aqalqiil naga gashay sallallahu ala nabi Soomaali inaan nahay aqalqiil nooga jirta calanka hoostiisa iyo doosteeda talbeelay ilka dunyada nagu qabsaday meel uu ka dhacay ma jirto meel uu ka dhacay wallahi hadoo ka soo hadlin anigaas qaaliya buntu qaadanay wallahi wa billahi wa tallahi nimankan raba inay noolaadaan oo xilal ka rabo oo kuraasta rabo gabadhaydu waa afduubantahay waay say ku dhacday ninkan runta sheegay beena oo qarsan wallahi wa billahi wa tallahi waxaan oo kala xaniyo taabad waay waxa sameey kartaa annaga gobolka Hiiraan deganay kulligood qabiilooyinkooda way joogaan kii baabuurku wato imaado kii socdo kii degan intaba wax waan ka qaban karnaa waa xishoonayna allan ka cabsanayna wala ka cabsiga idinka maxay idin diiday sallallahu alayhi maxay idin diiday ittaqullah gabadhayda uga baqa rabbi uga cabsooda allah arrahmaanka oo 99 ka magac la uga baqa culuma hadashay waxa hadlay beela hadlay islaamka ilaahay hadlay Soomaali weyna hadlayso wax ka hadlaay malaha qof ka hadlaay ma jirto waa la igu fiirsana intaas aan jooga ilmahayga dayacan oo meel ugu soo tagay ima fiiriyaa ima la xawdaan ma ila xawdaan laakiin anaga iska la xabeynayna markaan ka bacdi ciidamada dawladda Soomaaliya ku jiro gabadhiini waa taas ama soo bixiya ama sidiina ahaada xiniyiin wax ka jira malaha intaas aan ku soo gabagabeynaa hadalkayga